السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا قيمها بدنا هيك حولنا channel كدوينها يوتيوب داود البرنامج كنا ما أنت واحد نقص قادم تونا ويل يرى هذا وناكسنا إذا بيخلق صوب إن الله يقول تقيا والدين تيس هذا لو ذا مقل جري أنا يرى هتو دان تنصت وحولن جري أنا هو يعرض التي هلنا بيقول تريها بجيس كجو إن كي يرى سداسي وناكسنا أم بالله وصل كده هذا وحاو كون نقضي نين مجرم أن حريز تكفوجاتي هذا داود البرنامج كنا ما أنت واحد نقص قادم تونا إن كاس يفعل الذي فاش xumaa uu ku dhaqaaqay iyo arrimihii sababay inay noloshiisa muddo kooban gudaheeda ay sidaas isu bedesho ayaynu kaga hadli doonaa barnaamijkeena maanta ee daawasho wacan ku xidhnow channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir ku soo dhawow daawada mar kale muuqaalkeena maanta dacdadani aynu maanta ka warrami doono ayaa waxay bilaabmatay 80-yadii kadib markii ay isguursadeen wiil dhalinyar ah oo lagu magacaabi jiray Blake Hadley iyo gabadh la oran jiray Mary Jo. labadani lamaane ayaa labaduba shaqayn jiray. Blake ayaa waxa uu ahaa injineer ka shaqeeya korontada, xagga Maryna ay ahayd macallimad waxbarta ardayda dugsiga hoose. lamaanahan ayaa si degan waxay isaga wada noolaayeen magaalo yar oo lagu magacaabi jiray Fort Pierce oo ku taala gobolka Florida. sanadku markuu ahaa 1987 ayaa waxa uu dhashay curadkoodii waxayna u bixiyeen Ryan. weli wax dhiba ma jiraan, si degan ayay isaga wada noolaayeen. sanadku markuu ahaa 1993 ayaa waxa uu dhashay wiilkoodii labaad. fitanta iyo balaayaduna halkaas ayaa uga bilaabmatay reerkan. qoyskani inkastaanu ahayn qoys ku dhisnaa diinta islaamka ayaa haddana waxay isku dayeen inay ubadkooda u tarbiyayaan sida ugu wacan ay awoodi karayaan. maasha Allah, labadii awlaad ilaahay uu hagaajiyo waxay ahaayeen kuwa hadalka waalidiintooda maqla idin wanaag iyo akhlaaq suuban la isugu tilmaamo. Ryan iyo Taylor waxay ahaayeen laba qof oo walaalo ah oo aad isu jecel. walaalo oo kaliyana maanay ahayn, inkastoo 6 sano kala weynaayeen haddana waxay ahaayeen saaxiibo aad isu jecel mar walibana wada socda. muddo kadib waqtigii baa isbedelay, labadii wiil waa ay waaweynaadeen. Ryan dugsigii ayaa u dhameeyay, gobol kale ayuu jaamacadii ka galay. waxaanu ahaa wiil waxbarashadiisa aad u jeclaa oo waxbarashada aad ugu foganaa. inta badan qoyskiisa waxa uu soo booqan jiray oo kaliya waqtiyada fasaxyada. gurigiina waxa ku soo hadhay oo kaliya labadii waalid iyo wiilkii yaraa ee Taylor. maadaama Taylor wiil yar yahay, walaalkiisii ka weynaana uu ka dheeraaday, sidoo kalena uu kordambayskoodii yahay. waalidiintiisii waxay isku dayeen inay awoodda saaraan isaga si ay farxad u siiyaan isla mar ahaantaana aanu u dareemin cidlo iyo kalinimo. sidoo kale isna waxa uu ahaa wiil waalidiintiisa aad u jeclaa oo ixtiraami jiray. qalqaalimaanu ahayn oo waxa uu ahaa wiil yar oo iska qunyar socda, kuna dhagaadkeen waalidiintiisa oo hadalladooda maqla. balse wax walba waxay isbedeleen markii uu wiilkii yaraa ku beeray high schoolka amba dugsiga sare iskuulka. wiilkii yaraa ee miskiinka ahaa ee sida degan isaga waalidiintiisa ixtiraami jiray ee marka uu guriga ka soo baxo oo arko qaar kamid ah jaarkiisa oo dhan jiray hi neighbor, jaarkaygu sideetiin ma fiicantiin, ee dadka jaarkiisa ay bartay ku ducaysan jireen inuu siiyo wiil isagoo kala unba hal mar wiilkii yaraa waxa uu isku bedelay Hitler. haddaba dhibtu xagee ka timid? dibtu waxay ka timid wiilkii yaraa markii uu ku beeray dugsigii sare ayaa saaxiibtinimadii waxay ka gashay meel qaldan. alaaba iskuulada waxa lagu arkaa saaxiibo wanaagsan iyo kuwa xunba. waxa uu la saaxiibay mujrimiintii iskuulka, kuwa waxa uu la saaxiibay xataa macallimiintu ay ka khaakhayiraan. xagga ardayda kale ku faanaan cuntooyinka pizza, cunay sushi, iPhone-ka noocii u dambeeyay laga gaday. ayaa xartan iyo ku beeray waxay ku faanaan baakeed sigaaran kaliya cabay, ku yarban indhaha ka riday, islaan socotaan isaga hoos qaaday. yacni waa kuwa xumaan ku milmay oo xumaanta meel sare ka gaadhay. bilowgii waa uu la yaabanaa ardaydan oo waxa uu islahaa wartadkan meena dad dhalin, akhlaaqdii iyo aadaabtii xagee ka tagtay. balse marba marka kasii dambaysa wiilkii si tartiib ah ayuu kooxdii ugu soo biiray. dhaqankiisii wanaagsanaa iyo aadaabtiisiina waa ay dhala rogeen. 2 sano gudaheeda ayaa waxa uu ku noqday nin baaba'ay oo dhaqankii ka tegay. waxay bareen noocyada kala duwan ee maandooriyaasha, sigaarka, noocyada kala duwan ee daroogooyinka. waxa uu bilaabay inuu saaxiibadii xumxumayd la socdo, waqtigiisa oo dhan agtooda ku soo qaato oo habeenkii xilli dambe gurigooda yimaad. waalidiintiisii si kasta way isugu dayeen inay wadada ku soo ridaan oo ay waaniyaan. aabihii waxa isku dayay inuu xasuusiyo yaraantiisii iyo siduu u wanaagsanaa, balse walaaxaaga waxa uu noqday dhagax oo biyo korkiisa haddii lagu shubo aanu gudihiisa gaadhayn. heer waxa uu gaadhay jaarkiisii ammaani jiray ee jeclaa in ay carruurtooda ka ilaashadaanba si aanu uga fasahdin. maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday inuu la saaxiibay wiil yar oo jaar ahaayeen. muddo yar gudaheeda qoyskii uu wiilkaasi yar ka dhashay ayaa waxay arkeen wiilkii yaraa oo durba sigaar cabaya. kumaanay araga ku darso hadda wiilkoodu asagoo la socda Taylor. markiibana waxay ka shakiyeen inuu la saaxiibay Taylor. waxay uga digeen inaanu Taylor agtiisa marin oo la saaxiibin. wiilkii ayaa waxay sarkeen maalin maalmaha kamid ah Taylor ayaa waxa uu damcay inuu la hadlo. deetana waxa uu ku yiri niyow qoyskaygu waxay yiraahdeen hala socon wiilkaas ee waxaan u baahanahay inaan kala hadno. Taylor ayaa markuu maqlay hadalkaasi aad uga xadhooday. 2 isbuuc kadib Taylor waxa uu ku dhaqaaqay ficil la yaab leh.
habeen xilli dambe ah oo dadku wada hurdaan ayaa waxa uu tagay gurigii uu wiilkii yaraa ka dhashay deetana waxa uu dab gidigiisiiba qabatiyey fadhi yaalay daaradooda dab aad u weyn ayaana ka kacay adigu dhibaato sidaasi u baan reerkii maana soo gaadhin oo waa laga soo gaadhay oo waa la damiyey dhibaatada u weyn cidda ay soo fuulayso waa waalidiintii dhalay aad ayay uga warwareen arrinta wiilka yar iyo isbeddelka ku yimid haddii ay waaniyaan oo ay wax u sheegaan waa kanoo ma maqlayo waxaanay uga baqeen haddii ay ficilo kale kula kacaan inay dhibaatooyin ka dhashaan oo ayba suurtagal tahay inuu kula kaco ficilo aan la mahadin maadaama uu wiilku da ahaan yar yahay dhaqankiisiina uu isu beddelay mid xag jir ah wiilkii yaraa waxa uu muddo yaroo kooban gudaheeda ku bartay uu ku caadaystay maandooriyaasha bilowgii hore waalidiintiisu ma aanay dareemin hase ahaatee markii dambe ayay ogaadeen markii ay ka yaabeen arrinka wiilka yar ayaa waxay waalidiintiisii go'aansadeen inay geeyaan goobaha lagu dabiibo laguna taliyo dadka caadaystay ee nolosha ka reebeen maandooriyaashu meeshii markii la geeyay ee in muddo lagu hayay xaggii laga sugayay inuu isbeddel ku yimaado xiise ayuuba usii qaaday mana aanu doonayn inuu noloshiisa daba qabto u isbeddelo wax tala ahna haba yaraatee waa uu qaadan waayey arrintiisiina waxay noqotay mid aan waxba laga qaban karin qofku marka uu drugiska la qabsado oo addiction ku noqdo ambaba se u xaraaro hamuun u qaado way adagtahay sida looga reebaa sidoo kale waxa uu u baahan yahay qofkaasi hanti iyo kharash uu mar waliba ku soo iibsado wiilkan yarna lacago uu daroogooyin ku soo iibsado markii uu qoyskiisa ka waayay hal waddo ayaa u bannaanayd waddadaasi oo ah inuu wax dhaco maalin maalmaha ka mid ah ayuu boolisku wiilka yaraa gacanta ku soo dhigay islamaraantaanu xabsiga dhigay iyadoo lagu soo xidhay arrimo tuuganimo ah hal isbuuc ayuu xabsiga ku jiray sidoo kalena waxa lagu xukumay inaanu muddo 2 isbuuca aanu ka soo bixin gurigooda yacni xabsi guri haddaba muddadii 2 isbuuc wiilka yaraa guriga ku jiray ayaa waalidiintii u heshiiyeen waxaanay ku heshiiyeen inaanay sidani si ahayn looguna dulqaadan karin sidani uu wiilka yar u dhaqmayo oo wax wado waxaanay ku heshiiyeen inay joojiyaan koolkoolinta iyo inay wuxuu doonayo u qabtaan adigu waxay ku heshiiyeen inay gacan bira ku qabtaan ugu horreyn teleefankiisii ayay ka qaadeen waxaanay ku amreen inaanu dib ula xidhiidhin saaxiibadiisii xuxuma hase ahaatee wiilkan yar oo madax adeegkiisu madax adayg dhaafay waxa noloshiisa ugu weyne ugu muhiimsanina ay noqdeen oo keliya daroogooyinka hadalka waalidiintiisu waa ay ku dhaadhici waayeen markii ay waalidiintiisii teleefanka ka qaadeen xaggii ay filayeen inaan wax saaxiibadiisa dib ula xidhiidhi doonin saaxiibadiisa waxuu kala xidhiidhi jiray facebooka isagoo islamar ahaantan isticmaali jiray kombiyuutar yaala guriga sidaasi ayay ku wada xidhiidhi jireen daroogooyinka iyo waxyaabo u baahan yahay in hoos ayay u keeni jireen magaaladani ay ku noolaayeenna waa magaalo inta badan ay ku nool yihiin dad waaweyn oo waayeela ah mana laha inta badan meelaha ay dhalinyartu ku tuntaan markay xaflad iyo waxyaabaha lamid a qabsanayaanna waxa ay tagaan qof ka mid a dhalinyartaasi gurigooda haddaba Taylor kee arrintiisu ay xaggaasi marayso ayaa waxa uu go'aansaday uu jeclaaday bal hadaday inuu dhalinta xaflad tamashlayn ah ugu dhex qabto gurigooda balse sidee ku suurtagaleysaa waalidiintiisu ma ogolaba xataa inuu la xidhiidho saaxiibadiisii hore waalidiintiisu ma ogola inuu xaflad asxaabtiisa guriga ugu dhex qabto sababtoo ah waxay og yihiin saaxiibadiisu inay yihiin kuwii wiilka yar wadada ka leexiyay isla mar ahaantaana ayba isaga kasii daran yihiin kii arrintiisu sidaasi tahay isla mar ahaantan uu guriga ku xariisan yahay ayaa wuxuuba jeclaystay inuu guriga ugu dhex qabto saaxiibadiisa xaflad balse saaxiibadiisii ayaa markuu arrinkaas u sheegay aad ugu qoslay waxaana yidhaahdeen doqonow adaaba lagu ilaaliyaa xafladad qabsanaysid waa noocma una sheegeen waxaanu ka sheekeynayo inaanay suurtagal ahayn ayaa waxa uu ka qaaday dhiirigelin oo waxa galayba ficil waxauna go'aansaday si kasta ha ku qaadatay inuu arrintaasi kaga dhabeeyo haddaba 2011 bishii July ayaa maalin maalmaha ka mid ah bartiisa Facebook waxa uu ku soo qoray qoraal xogay yaab ku noqday asxaabtiisii inay xafladu caawa dhankayga noqoto ayaa suurtagal ah asxaabtiisa oo si dhow ula socday arrinta wiilkan yar ayaa warkiisa rumaysan waayay balse isla maalintii 7 saac kadib ayaa barta Facebook waxa uu ku soo qoray qoraal aanu markan wax madmadow ah ku jirin kaasi oo ku xaqiijinayo inay xafladu caawa gurigooda ka dhici doonto mid ka mid ah asxaabtiisa ayaa la soo xidhiidhay deetana waxa uu weydiiyay waniyo waalidiintaadu ilmaha kuwa arrintaasi ogolaanayee bal waxay sheeg sideed wax wadaa waxa ku yiri waalidiintaydii maanta waa safreen oo magaalo kale ayaa u safreen ama joogaan deetana waxa ku yiri bal ka waran hadii ay nagu yimaadaan arrintaas miyaanad isweydiin waxa uu ku yiri may inooguma imanayaan taas ana huba sidaas ayaanu ku aaminay asxaabtiisii intaasi kadib Taylor ayaa aba baxay deetana waxa uu bankiga ka soo saaray lacago waxa uu soo iibiyay khamri aad u tiro badan muddo yar gudaheeda gurigii waxa soo buuxiyay dhanin aad u tiro badan iyaguna ma garanayaan isna ma garanayo sabab say ku dhacday gurigiisa inay iska soo galaan dhalin aad u tiro badan oo aan isgaranayn sababtu waxay ahayd sidaan hore u soo sheegay magaaladan oo ah magaalo inta badan dad waaweyn ay ku nool yihiin ayna adag tahay dhalintu inay helaan meelaha xaflada ku qabsadaan sidaas ogeed qof waliba oo maqlay inay xaflada gurigan ka jirto waa uu soo galay waa la soo buuxsamay gurigii Janice ayayba u noqotay saacado yar oo kooban gudaheeda ayaa gurigii waxa ku soo galay dhalinyaro ay tiradoodu kor u dhaafayso ilaa 60 qof xafladii ayaa bilaabmatay gurigii ayaa laga daaray music aad u dhawaaq badan
waxaa isqabsaday guriga qiiq buuq iyo sawaxan dhalintii ayaa wada sakhraantay oo khamriga iyo geedaha kale ay cabayaan aad isugu badiyey markaasay qaarkood quraaradaha ay khamriga ka cabeen dhulka ay ku tuurayeen muddo yar gudaheeda ayaa gurigii kamkamka iyo siduu isu dhex yaalla waxa u ekaaday meel gidaafada Taylor kamaana qasnayn isaga meesha ayuu dhex boodayay tamashlaantii waxay sidaasi ku socotaba Taylor ayaa wiilay saaxiib ahaayeen jaar isku dhowna ahaayeen ay xataa qaraabadoodu is yaqaaneen waxa uu ku codsaday inuu dibadda oo la yarbaxo arrin kala hadlo wiilkii ayaa markiiba ka ogolaaday dibadda ayayna iskula baxeen Taylor ayaa iyadoonay wejigiisa ka muuqan wax cabsi iyo murugo ah waxa uu si toos ah Michael ugu sheegay in aanay labadiisii waalid meelna u safrin isla mar ahaantaana uu labadiiba dilay sida yar fudud oo ugu sheegay oo hadalka ugu soo tuuray awgeed wiilkii waa aamini waayay waxaana uu ninkan ku hadlayo waxa uu ku yiri nin waad kaftamaysaa kaftanka inaga daay waxaad sheegaysaa ii sheeg يعني هدي uu ku yimaado qof ay wajigiisa ka muuqato farxad oo iska qoslayaba hadii ku yiraahdo nin waalidiinteedii ayaan maanta u dhameeyay day waxaad u fahmaysaa qof iska kaftamaya yani day qof labadiisii waalid ay dunida ka tageen day farxadba uma taal Taylor ayaa Michael waxa uu ku yiri dhabayay ka tahay kulama kaftamaya oo waan laayay labadiiba waan dilay haddii aad beentay moodaysidna kaale fiiri garaashka gawaarida garaashkii markii ay fiiriyeen ayaa waxay arkeen gawaaridoodii oo guriga yaal waxaana ku yiri Taylor marba haddii ay gawaarigoodii garaashka yaalaan taa micnaheedu waxa weeyaan inaanay meel loo safrin Michael ayaa waxa uu ku yiri sideen ku aamini karaa warkaas okay inaan ku aaminayba ka soo qaad bal iiga waran sidee arrintaas u fulisay bal iiga dhacniyo sidee arrintaas ku dhacday waxa ku yiri maanta cabaara duhurkii ayaan bartayda Facebook waxaan ku soo qoray caawa waxa laga yaabaa inaan xaflad qabsado isla mar ahaantaana aan guriga iyaga ku dhex qabsado waqtigaas ma aanan hubin inay arrintu dhici doonto sidaas darteed ayaan qoraalka ugu daray laga yaabaa inay dhacdo hooyaday iyo aabahay waan ka yara baqay ayaga oo maankoodu saafi yahay inaan dilo oo waxaan ka yara baqay inay sabab ka celiyaan oo dilaan aniga sidaasi awgeed cabitaanadoodii ayaan waxaan ugu daray kiniino sakhraamiya markii cabeen cabitaankii aan ugu daray daragada ayaa waxaan u tagay hooyaday oo guriga hagaajinaysa dhinaca hoose isla mar ahaantaana leecleecaysa tubbe ayaan soo qaatay ayadoo sii jeeta ayaan xagga dambe kala istaagay intaan gacanta kor u qabtay anoo ku fikiraya ma ku dhufataa ma ka daysaa ayaa waxaan is arkay anigoo ku bilaabay madaxii ayaan dubbaha kala dhacay ilaa ay sidii ku nafbaxday qayladeedii iyo dhawaaqii afkeeda ka soo yeeriyay awgeed ayuu aabahay xagga sare saarnaa soo daadegay isaguna markii uu sidaas u soo dhaadhacay ayaan isna dubbihii la dul tagay ilaa oon isagana sidii nafta ku dhaafiyay Michael oo la yaaban erayada wiilkan afkiisa ka soo baxaysa iyo sida yara degan uu saga sheekaynayo ayaa waxa uu ku yiri Neo Taylor oo miyad iga tooxsanaysaa ama prank ayaad igu samaynaysaa waan bakaashakiye watay hadii runka tahay ee xaqiijiyo tus وهرمري وإسراعين waxa uu geeyay qolkoodii hordada markii uu albaabkii sidaas uga furay oo Michael sidaas u galay ayaa waxa uu arkay qolkii oo dhiigdii ka ururayo iyo hooyadii aabihii oo meeyda hoosto saaran Michael ayaa markii uu sidaas u arkay argagaxay degdeg intuu uga soo booday ayuu albaabkii xiray waxaanu ku yiri khalaas waan ku aaminay Michael iyo Taylor si caadi ah ayay xafladii ugu soo laabteen oo dhameystirteen waxaan u maleynayaa Taylor inuu kullayba aaminsanaa inuu jeelka gali doono waxaanu la galgalay saaxiibkii Michael sawirro sabootina yani igu soo xasuuso haddii aan xabsiga galo walibana Taylor intaasi kuma aanan ekaan qaar badan oo kamid ah saaxiibadiisii xafladda yimid ayuu arrintii uga waramay yani waa arrin la yaab badan shakhsi dilay hooyadii iyo aabihii waalidiintiisii dhalay isla mar ahaantaana asxaabtiisii uga waramay oo sheegayaba inuu isagu dilay ma aqaan ma kalsooni sidaasi oo dhan u weyn ayuu asxaabtiisa ku qabay mise waxa uu aaminsanaa marleyba inuu xabsiga gali doono sidaasi awgeedna asxaabtiisa ugu sabootinayo mise ficilkani foosho xun ku dhaqaaqay waxa uu u arkayay faan sidaasi awgeed saaxiibadiisa waxa uu dareemsiinayay inuu yahay wiil geesi ah oo cabsan adigu xafladoodii ay iska wadeen xafladiina waxa ay soo gabagabeeyeen ay meesha ku kala tageen saacadu markay ahayd cabaaro 4 subaxnimo watahay markii ay kala tageen oo dadkii kala socdeen ayaa haddana subaxdii dambe waxa uu Facebook ku soo qoray inuu caawana sidoo kale uu xaflad qabsan doono haddaba ma kula tahay xaflad kale inuu caawana qabsado isla maalintii asaga u diyaar garoobaya inuu soo iibiyo khamri kale oo aad u tiro badan si uu ciyaalka xaafadda ugu soo diyaariyo meel ay caawana ku tamashleeyaan ayaa ileen saaxiibkii Michael ayaa markii uu guriga sidaas uga baxay waxa uu markiiba si degdeg ah oo la xiriiray booliska lana socodsiyo u faahfaahiyay arrintu sida u dhacday Taylor oo diyaar garoobo oo soo baxis leh ayaa booliskii gurigii u galeen dhab ayaana la siiyo waa la jeebeeyay haddaba arrinta wiilkan yar ee 17 jirkii ku dhaqaaqay ayaa waxay noqotay dhacdo aad u gilgishay Mareykanka sidee uga suurowdaa qof miyir qaba in uu waalidiintiisa habkaasi foosho xun u laayo haba laayay walibana meydkoodii oo guriga u yaal uu ku kor qabsado xaflado iyo inuu hablayo inama la boodboodo walibana ay tahay sababta uu waalidiintiisa qiimaha badnaa u laayay kaliya inuu guriga baadhi ku dhex qabsado يعني waa arrin dadkii aad uga yaabisay xataa waxa ay ka yaabisay oo arrintan gacan ka taagay saaxiibadiisii wadada ka leexiyay caadadan foosho xun baray
saaxiibadiisii ayaa dhammaan waxay sheegeen in maalintii xafladda aanay wejigiisa marnaba ka dareemin inuu ninkani hooyadii iyo aabihii dilay oo uu si weyn oo yaab leh u faraxsanaa waxaanay sidoo kale ku dareen inuu marar badan odhan jiray hooyadii iyo aabbahay waan dili doonaa balse maanay rumaysanayn oo waxay u arkayeen qof iska hadlaya ugu dambeyn maxkamadda ayaa la soo taagay laakiin mushkiladdu waxa ay ka jirtaa maalintii uu wiilkan yari dhibtaasi geystay da'diisu way ka yareen 18 oo waxa uu ahaa 17 jir markaa dee kulli waa laazim in xukunka laga yar khafiifiyo ayaydii amba mucooydii oo dhashay hooyadii ayaa waxa ay maxkamadda ka codsatay inay xukunka ka yara khafiifiyaan maadaama uu yahay wiil yar isla mar ahaantaana arrintaasi ay caruurnimo ku dhaqaajisay dadka waayeelada ah sida caadada ah kulley inta badan caruurta ay caruurtoodu dhasho si gaara ayay ugu naxariistaan waqti walba waana la tiiraanyoodaan balse nin ficilkaasi ku dhaqaaqay dee naxariis ma istaahilo waxa yimid walaalkiisii ka weynaa ee Rayaan ninkii xaakimka ee meesha fadhiyey ayaa waxa uu ku yidhi walaalkaa miyaad jeclayd wuxuu ugu jawaabay haa wuxuuna ku yidhi bal ka waran haddii aan xukunka adiga kuu dhiibo maxaad ku xukumi lahayd walaalka Rayaan ayaa waxa ugu jawaabay waxaan ku xukumi lahaa walaalkay xukunka aan isleeyahay waa midka ugu hooseeya ugu yar kaasi oo ah xabsi daa'in aan ka noqosho lahayn oo aan noloshiisa inta ka dhiban aan laga cafinayn waa xukunka ugu hooseeya ee anigu ku xukumi lahaa buu yidhi ugu dambeynna Taylor ayaa arrintii wax laga weydiiyey hase ahaatee waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay ficilkii uu kula dhaqaaqay waalidiintiisa waxaana ka codsaday walaalkii iyo dhammaan ehelada waalidiintiisu inay cafiyaan haddaba arrinta la yaabka badan ayaa waxay ahayd Taylor intii aan maxkamadda la soo taagin ka hor markii la geeyay xabsiga maxaabiista iyo maxbuus kasta oo la kulmo waxa ku lahaa miyaanad garanin ima taqaanid miya waxaan ahay wiilkii waalidiintiisa dubaha ku laayay yacni waxay u ahayd faan oo waa uba ku faanayay oo maxaabiistii ayuu tusayay inuu yahay ninaan baqin ooba waalidiintiisii dubbe madaxa kala soo dhacay markaa warkani uu maxkamadda ka horjeediyey niyad kamaanay ahayn oo waxay ka ahaydun inuu muujiyo dadka inuu ka xun yahay ficilkii uu ku dhaqaaqay ugu dambeynna qaadigii waxa uu ku xukumay wiilkii isla xukunkii uu walaalkii yidhi waan ku xukumi lahaa oo ah xabsi daa'in aan ka khafiifin iyo ka noqosho midna lahayn inta noloshiisa ka dhiman yacni waa dhacdo aad u la yaab badan kuna tusaysa ilmaha si kastood u tarbiyaysid iyo wanaag kasta aad ku soo korisid in inama yaryari ay si yar oo keliisa ku bedeli karaan shakhsiyadiisii waxa uu ahaa wiilkani bilowgiisii wiil aad u wanaagsanaa oo waalidiintiisa ixtiraami jiray balse markii dugsiga sare lagu daray muddo yar gudaheeda ayay saaxiibadii xumaydu ugu tegay ku bedeleen waxaanay ka dhigeen sidooda oo kale welibana waxa uu noqday mid bahal ah oo kasii daran xataa ayagii marka haddii aad istiraadid adigu waad wanaagsan tahay xumaanta iyo wanaaggana waad kala garanaysaa saaxiibo xunxun aad la socotid naftaada been ayaad u sheegaysaa si tartiib ah oo aanad dareemayn ayay saaxiibadaasi xun naftaada raad ugu yeelanayaan markaa saaxiibada xunxun ha laga dheeraado waalidiinta siiba waalidiinta qurbaha ku nool waxaan leeyahay ubadkiina meesha aad geynaysaan ka warhaya in badan ayaanu maqalaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool oo isla kuwa Soomaali ah nafta dhaafiyay welibana si xun u dilay wax ugubana maaha mar walibana way dhacdaa sababtuna maxay tahay waalidkii oo ubadkoodii dayacay ahmiyad weyn aan siinin iskuulka ay dhigtaan iyo saaxiibada ay la socdaan ugu dambeyn aad ayaad igu mahadsantihiin daawashada intaynu barnaamijkan la mid sugi doonaba waxaan idin leeyahay nabadgelyo sidoo kale fadlan qisadan sii sheer garee oo la wadaag asxaabtaada si looga waantoobo saaxiibka xun assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ku xidhnow channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir